إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. waxay kaloo u baahanay markaas markuu qofku dunuubta ka toobad keeno inuu la yimaado asbaabaha keensanaya inuu khayrka laazimo oo aana toobadaadu tadabdub aanu ku dhicin aana dib u noqonin حتى هداد ابن نقطة طيرها شكني صار نقط إلهي وغفور رحيم قابل الطوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل الطوب غافر الذنب وياه وقف هدو إيمان كل انتو آخرة وتحت المشيئة إذن إلهي وغافر الذنب ودافك الذنب هدو طوبت كانين وقابل الطوب وطوبت على واقع أقبلها هديك لنا نار تعالى ما إليها haddii aanu gaalnimo ku dhimanin naartu waa meel lagaga taahirinayo uskagii dembigu uu kaga tegey marka inaad toobad uskaga iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga waxaa habboon qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu maydho oo uskaga dembiga uu iskaga maydho toobad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno sababaha ku gargaara dadka toobadana waxaa ka mid a kow ikhlaaska كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين توبضوا قفكم مركو كان وحا خير نقوهيا المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إن الدداشد وهذا خير كو دداشد وحكم إذا وحيابا قفكم مؤمن كتوبضوا وقرقارا إنه رجد صور لما قصر الأمل أدات سنوات سين ولندن ولد اللي يرى توبض باحدي haddaa curdinkaaba malakul mowt uu qabtaa uma baahna markaa inaad da' gaadho dheer sidaa daraaddeed garan maysid wakhti naftu kaa baxayso ta kale macsidu hadday badato macsibay cuquubo u keentaa macsidaadii baa laguu sii ciqaabayaa mid kale sidaa ogeed waxaa fiican qofka mu'minkii siduu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam dunidan ku noqo kun fi dunya kaannaka gariib aw cabri sabiil mid ka tallaabaya jid ama mid gariib oo meesha soo galay uun haddaad niyaddaada amalka haddaad soo gaabiso toobaddaadu way badanaysaa waxyaabaha toobadda kaalmeeya waxaa ka mid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko oo cibaadadu khayrkay leedahay lagu arko macsidu balaayaday wadatana lagu arko waxaa ka mid a waxyaabaha dadka toobadda iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada bay yidhahdaan kelinimadu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan labaduna waa shaydaanmo saddexduna waa safar baa la yidhi yacni shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaan yahay aad buu kuula joogaa waxaa la mid ah inta aad firaaqo iska tahay qofka mu'minkii inaanu firaaqo noqon baa fiican cibaado ku mashquul waxbarasho ku mashquul xoogsi ku mashquul wakhtigaaga isticmaal waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato laakiin dhallinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato tv-ga daawato waad wareeraysaa sidaa ogeed culammadu waxay dhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiyo toobaddana u dhoweeya waxaa ka mid ah albucdu can almuhiiraat waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko jaraa'id tv waxyaabahan xunxunee quranka faafiyoo dhan waxaa ka mid a waayo ibn aljawsi baa laga sheegaya inuu lahaa man qaaraba alfitnata bacudat canhu asalaam ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyay haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib waxaa ka mid a toobadda waxa kuu wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo kuwa sharka qaba iskaga hadhi arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إخوتي في العقيدة وحنكو سوق قبينية نبي محمد عليه الصلاة والسلام عائشة مركي بينتا لغا الشيغي ليدي نبي راعدية وكان يوازني ستية وحكان أيو انتو يمي بحديثك بخاري يا مسلم بو حقولي
wain kunti almamti bidanbin faاstakfir illaah. nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay inuu toobadkeen, ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen. qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasimaa. toobaddaasi waxay keensanaysaa waynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantiid, laga toobad keeno shar dhammaantiid. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiinta inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan wadalamuu anfusahum, kuwa hadday xumo sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena baa layidhi. waxaynu u baahanay nolosheennoo dhammi toobad bay u baahantay. ka umma ayaynu u baahanay inaynu toobad keeno, ka afraad iyo ka ashkhaas, ka caa'ila inaynu toobad keeno. toobadduna waxay keensanaysaa inaynu ilaahay jidkiisa u noqonno subxaana wa tacaala, khayrkana raacno. intaasaan ku soo koobaya. wallahu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.